waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya ciyaaraha kubadda cagta ee lagu maamuusayo xuquuqda haweenka kuwaas oo ka dhici doona waddankan Koonfur Afrika. wafdiga gabdhaha ciyaarta ka qaybgalaya oo gaaraya 26 qofood ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe iyo gudoomiyaha gabdhaha kubadda cagta ee Soomaaliyeed Shahiima Salal Maxamed. ciyaaraha ayaa waxa ay dhex mari doonaan 4 wadan oo Afrikaan ah kuwaas oo kala ah South Africa, Soomaaliya, Zimbabwe iyo Zambia. kadib markii ay garoonka ka soo degeen gabdhaha iyo wafdigii la socday ayaa waxaa loo gudbiyay halka ay ka degayaan magaalada Cape Town inta ciyaartu socoto. waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay gabdhaha Soomaaliyeed ee u ciyaaraya qarankeena Soomaaliya oo uu ka mid yahay Abdullaahi Buura Cabdulle iyo u qaybsanaha safaradda Soomaaliyeed Abdullaahi Ali Xasan. magacayga waa Abdullaahi Buura Cabdulle. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa maanta aan ka soo qayb galo soo dhaweynta gabdhaha Somali National Football oo Zambia, Soomaaliya, South Africa iyo markino wadamo intaas markino ku ciyaarayaan wadankan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar kale idinku soo dhaweyno airportka International Airport Cape Town. waxaan garabkiina taaganahay insha Allah taala hadii alla yiraahdo Soomaaliya guul. maanta waxaa sharaf noo ah in aan magaaladan Cape Town South Africa ku soo dhaweyno kooxdii ugu horeysay ayaan leeyahay gabdho Soomaaliyeed oo wadankeena Soomaaliya ku metelaya kubadda cagta oo ciyaaro socon doona isbuuc iyo wax la jira ilaa 10ka December wadankan kaga qayb geli doona inaan halkan ku soo dhaweyno kooxdaas oo loo yaqaano Golden Girls loo yaqaano. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa galabta koox gabdhaha oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka yimid oo metelaya wadanka Soomaaliya halkan u yimid ciyaaro. waxaan leenahay ayagii iyo wafdigoodaba soo dhawaada ku soo dhawaada Cape Town. ugu dambeyntii waxaa la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gaballe iyo Shahiima Salal. aan rajaynayno haddii aan gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinkoodii inaan guusha koobka qaadi doono insha Allah taala. waxaan ku faraxsanahay in gabdhihii Soomaaliyeed iyagoo metelaya gabdhaha Soomaaliyeed ay ka kala yimaadeen qaaradaha Yurub iyo Soomaaliya inay ka yimaadeen. taana waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay horay u martay oo adduunka ay la tartamayso oo meeshaan ay ka turjumayso gabdhaha maanta u soo banaan baxay. waxaana ka turjumaya gabdhaha yaryar ee quruxda badan ee u soo saftay inay metelaan magaca Soomaaliya. Soomaaliya 5 qaaradood ay ku nooshahay. maanta waxay gaartay heer ay iyadu isu xil saarto inay magaca Soomaaliyeed kor u qaado. bismillaah magacayga waa Shahiima Salal Maxamed gudoomiyaha Golden Girls Sport Center gabadha oo ugu horeysay asaastay kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed. maantan aad iyo aad u faraxsanahay inaan ka imaano ciyaaraha ugu horeeyay oo internationalka ka qayb gali doono. gabdhaha inaan soo wado oo ku dhiirigeliyo aad ugu faraxsanahay iyo gabdho kale nala socdaan oo kamid ah gabdho ka imaada London ayagana inoo matalaya Golden Girls aad ugu faraxsanahay. dadaalkan juhdigan soo marnana ma ahan mid oo aad u yar oo aad u dhib badnaay laakiin si alxamdulillah maanta meesha rabna waa joognaa. Cape Town.